وتلفزيون STN TV. برنامجكم وبرنامجكي تطبيقات وزارة ما أنتم عندنا نسيب ويا لنا إننا نمارنا وزارة deegaanka iyo isbeddelka cimilada waxaan la kulmay maanta wasiirka wasaaradda Axmed Yuusuf Maxamed Labeek wasiir subax wanaagsan oo aan soo dhawaada dhamaantiin waan salaamaya kusoo soo dhawaada wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada wasiir waxaa jirta barnaamij aynu ugu magac darno toddobaadka wasaaradaha taasoo aynu kusoo bandhigno waxqabadka wasaaradaha talooyin aynu ku bixino marka waxaad nasiib u yeelateen saakin aynu soo booqano wasaaradda aynu soo booqano taas waa telefishinka STN waxaan idin soo dhaweynaya insha Allah tacaala wasiir sawir guud wasaaradda iyo habka ay u shaqeyso aad baan idinkaga mahadcelinayaa sida wanaagsan aad noogu soo booqateen saaka iyo barnaamijka baaxadda leh aad wadaan run ahaantii shaqadii hawl maalmeedka ahayd baa wasaaradda ka socota wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimiladu waa wasaarad ka mid ah wasaaradaha dowladda Puntland sideedana waa wasaarad baaxadeedu ay aad ballaaran tahay maadaama ay ka shaqeynayso deegaan iyo isbeddel cimilo deegaanada Puntland oo dhan ayay ku farkaraysaa wasaaraddu waxa weeye laba qayb oo waaweyn oo deegaan ah iyo isbeddelka cimilada ayay ka shaqeysaa oo hadeer qaybta ugu muhiimsan ay tahay caalamka oo dhan oo xoogga saaray isbeddelka cimilada oo dhibaatooyin badan iyo aafooyin badan oo deegaanadeena iyo dadkeena la soo darsay ay ugu wacan tahay isbeddelka cimilada oo ah inay isbeddesho cimiladii taasoo keentay inay isbeddelaan habdhaqankii nololeed ee bulshadeena meelihii abaaraha oo saameynteedu ay u sal tahay isbeddelka cimilada xilliyada roobku markuu yimaado ay imanayaan roobka waaweyn ama dhaqamadii hore roob lahaa aanay lahayn oo daadad ay noqonayaan fatahaado ay noqonayaan boqolo ay samaysmayaan taasaa keenaysa marka in baaxad ballaaran iyo muhiimad gaar ah ay wasaaraddu siiso lana jaanqaado dunida horumartay meesha ay marayso hadba ay maraysana ay la socoto wasiir wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada runtii waa wasaarad aad u baaxad weyn maxaa idinku xusuusan karaa waad qabateen intii aad xilka haysay xaqiiqdii aniga wasiir ahaan kolle muddadan joogay muddo kooban laakiin haddii aan is iraahdo maxaa lagu xusuusan karaa waxaan is leeyahay qodobka ugu muhiimsan waxaa weeye shaqadii wasaaradda ka socotay oo la jibaaray intii hore la qabanayay oo dhaba laga dhigay shaqooyinkii hore socday kuwa ka duwan oo lagu daray deegaamadii oo laga shaqeynayay in la laba jibaaray taasoo keenaysa in meeshii la rabay in la gaaro ama ahdaaftii la rabay in la gaaro in xilli hore la gaaro wixii lagu dari lahaana lagu daro shaqooyinka aan isleeyahay waa qabanay muddada kooban aan joogno waxaan isdhihi karnaa waxaan dejinay proposaladii lagu horumarin lahaa wasaaradda waxaan dib review ugu sameynay istaraatiijiyadii wasaaradda iyadoo wasaaraddu waagii hore ahayd laba wasaaradood laakiin hadda noqotay hal wasaarad oo laba wasaaradood looga kala dhigay maadaama beerihii laga saaray istaraatiijiyadaasoo keenaysa in 5 sano ee soo socota qaabkii loo shaqeyn lahaa si fiican intii loogu fariistay go'aagis ballaaran lagu sameeyay waxa kaloo aan qabanay inaan ajendayaal u dejino priority ah qaabka ugu wanaagsan oo waxa weeye wasaaradda lagu horumarin karo deegaankana wax looga qaban karo waxaan booqasho ku tagay deegaano badan oo Puntland ka mid ah oo aan isleeyahay waxqabadkii la qaban lahaa ama wixii laga qaban lahaa waxa number 1 u ah horta in la soo arko oo warqado laga diyaariyo oo soo booqano waxa socda mashaariic badan oo ugu horeyso dhuldaaqsimeedka in laga shaqeeyo meelihii boqolihiiha waxa qayb ka ah in magaalooyinka ama degmooyinka xarumo bulsho wacyineed laga dhiso waxa qayb ka ah inaan tagnay magaalooyin ama deegaano uu ku habsaday bacaadku iyadoo aan warbixin dhammaystiran ka soo diyaarinay proposal iyo warbixinadiisii aan diyaarinay waxaan sidoo kale hadda gacan ku wadnaa inaan diyaarino shirweyne weyn oo shirweynaha deegaanka Puntland oo keeni doono hadduu ilaahay khubaro iyo aqoon-yahano
dhinac walba looga doodi doono aanu rajaynayno in waxqabad muuqda ay ka soo baxaan hadduu ilaahay idmo taasaa marka waxaan is dhihi karaa intaas iyo waqti kale oo soo socda hadduu ilaahay idmo insha allah guulaha la gaari doono inay dhawaan kusoo bixi doonaan haddii ilaahay idmo wasiir axmed labeyk mashaariicda aad qabataan yaa idinka caawiya wasaaradda xaqiiqdii intaan mashaariicaha la gaarin oo de mashaariic walba mashruuc walba oo la helo waxaa laga yaabaa inay cidi bixinayso fankiisa laakiin number one waxaa annaga noo ah marka ugu horeysa inay wasaaraddu isku tiirsanaato waxa kowska ugu weyn oo ugu horeeyana wuxuu noo yahay wacyigelinta bulshada in la wacyigeliyo waayo sidii ay u ilaashan lahaayeen deegaankooda iyo khayraadkooda dabiiciga ay ugu horeyso dhirtii inaan la jarin ugaarsigii inaan la ugaarsan taasaa marka waxaa la dhihi karaa annagu juhdiga ugu badana waxaan ku bixinaa wacyigelintaas iyo in priority-ga ay wasaaraddu isi siiso oo isi saarto wixii mashaariic aan u qareenno oo lasoo helana hadda ciddii aan ka helno ayaa waxa weye ay ku tiirsan yihiin laakiin mar walba facilitieska iyo fududaynta iyo fulinta iyo hagidda iyo dhammaystirkiisaba waxaa iskale wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada. axmed sani wasiir dhirta iyo ugaarsiga iyo geedaha tusaale ahaan mar walba waxaynu aragnaa gawaari waaweyn oo ku raran geedaha la shito runtii taasoo nabadguur ku ah wax sharci ma ka soo saarteen ma jiraa tallaabo macnaha iyo dad aad ku qabataan sharci aad la tiigsanaysaan maadaama ay ka mid tahay xaalufintii xaalufka waa jiraayo waxa weeye xerar iyo shuruuc baa ka soo baxday oo dhirtii ama iyadoo geed ah oo xaabo ah ha la shito ha la soo jaro ama dhuxul ha laga dhigo ha la gubo ama ugaartii ha la baabi'iyo ha la soo laayo habeenkii ama maalintiiba intaba waxaa jira xeerar oo xeerka deegaanka uu ugu horeeyo oo wasaaradda hore u dejisay fulintiisiina ay socoto runtii sida aad ka warhayso wixii waa mamnuuc dadkiina waa loo sheegaa waana lagu wacyigeliyaa iyagiina waa ogyihiin laakiin sa ay tahay baa misna shaqadii socotaa waxay ku socotaa qaab dhumaaleysiya weli ma aynaan gaarin stage ah ama heer ah inaan si rasmiya oo baaba ah aan ku wada joojino in dhuxushii iyo xaabadii ay wada istaagaan oo deegaanada ay ka wada istaagaan laakiin qorshaha noo degan baa wuxuu yahay xilli dhow hadduu ilaahay idmo in ay ka wada istaagto deegaanada puntland haddii ilaahay idmo laakiin dhinaca kalena waxaan ka wadnaa badiilkii inay helaan dadkii oo aan dadka ku wacyigelino ama inay isticmaalaan gaasaskii iyadoo wasaaraddu waddooyinka ugu dambeysay ay qaybisay ilaa iyo dhowr kun oo haamood oo haamaha gaaska iyo shooladahooda iswata sadkii oo dhammaystiran haddana gacanta waxaa lagu hayaa dhowaanta number kale in iyadana la qaybiyo waxaa sidoo kale la qaybinayaa iyagana barkajooyinka dhuxusha tashiila oo loogu talagalay in qoysku meeshuu calalqal dhuxul badan ka isticmaalaya dhuxushii half 50% uu seefgareeyo oo wax yar uu isticmaalo taasaa marka waxay keenaysaa in aan priority-gii siino in dadkii loo jihayo inay gaaska wada isticmaalaan si looga maarmo dhuxushii iyo xaabadii gabagabadii maxaa idin diiday wasiir in maayarada macnaha aad kala shaqaysaan dhiraynta magaalooyinka tusaale ahaan waxaynu leenahay xeeb macnaha aada u fara badan aada u qurux badan sida ayl iyo boosaaso iyo meelo la mid ah maxaa u diiday in dhir lagu beero macnaha xeebahaasi aada u qurux badan magaalooyinkana maxaa u diiday dhir lagu beero waa aragtay marka dhirta la beero waa la harsanayaa wax walbaa la sameynayaa ma jiraa qorshe ah in magaalooyinkaas la qurxiyo dhirna lagu beero aada wadaan mise xeebaha aada qurxisaan magaalooyinka si guud ahaan aan u kala qaadayn magaalooyinka dhexdooda iyo xeebahaba aan u kala qaadayn qorshe weyn oo ah in deegaanada puntland la wada dhireeyo qorshahaas waa noo degan yahay wasaaraddu waxay leedahay neersariyaal ama meelo lagu kabciyo dhirtaas runtii ay soo saarto wasaaraddu iyadoo aan dadka wax faa'iida laga doonayn baa dhirta loo qaybiyaa maayara ha ahaadeen ama dad ganacsata ha ahaadeen dadka waxaan ku dhiirigelinaa in la beero runtii waa ka warhaysaa geedka in lasoo kobciyo lasoo saaro waxaa muhiimad labaad u ah markii la beero in la xanaaneeyo xanaanayntaa marka haddaanu helin oo ilaalin aanu helin oo xoolihii laga ilaalin ma baxayo ama ma kobcayo marka gacan ku hayntaas yaa waxaan iska kaashanaynaa haddii lahay dowladaha hoose iyo degmooyinka
qorshe noocaasa marka uu socdaa magaalooyinka qaarkood waa ognahay dhir aan badnayn baa ku beeran magaalooyin cagaara noocan ma waa jiraan magaalooyin dhir aan lahayn waa jiraan laakiin wacyigelinada iyo ka shaqaynta degmooyinka bay qayb kow ah noogu tahay waana haddii ilaahay idno ka hirgelin doonaa insha allah haddii ilaahay idno shaqada fulinteedii iyo inay dhammaystiraan oo la socdaan iyo waxa iska leh maayarada oo iyagaa laga rabaa inay gacanta ku hayaan laakiin annaga intaan usoo saarno aan ku wareejino oo degmooyinkii siino dhirta noocyadii kala duwan noocay doonaan haba ahaatee taasaan anagu muhiimad gaar iska saaran taladaada guud ee aad usoo jeedinaysa shacabka puntland tala guud baa lagaaga baahan yahay wasiir axmed xaqiiqdii waxaan ku gabagabeynayaa ama tala soo jeedin ugu soo dhigayaa number 1 horta waxaan ummadda reer puntland aan ku boorinayaa aan u sheegayaa inay deegaanka ama deegaan markii laga hadlayo ay ka dareemaan inay lahaanshiyo ay iyagu leeyihiin uu yahay taas marka ay dareemaan ayaa imanaysa in la ilaashado deegaankii noocu doona ha ahaado xaalufkii laga ilaaliyo dhirjaristii laga ilaaliyo dayicii deegaanka laga ilaaliyo oo qashinka waxyaabaha waxyeelaya bacaha caagadaha hata laga ilaaliyo qofkii uu noqdo mid ka damqanaya in uu deegaankiisii waxyeelayo sidoo kale waxaan qodob labaad uga dhigayaa ugaarsigana in la ilaaliyo oo la joojiyo intiisa badnayd xadid meelo fiican baan gaarsiinay ilaa hadda dad badan oo lagu xukumay kiisas noocaasa laakiin waxaan ognahay inay weli socoto qaab tugaaleysi ay ku socoto qofka marka ugaarsanaya waxaa dhiirigelinaya kan leh waa u baahanahay iikan ama ka iibsanaya marka waxaan doonaynaa inay dadkaasina ka joojiyaan inay ku dhiirigeliyaan kan ugaarsanayana waxaan rabnaa inaan u sheegno inuu sharci darre yahay haddii lagu qabtana haddii ilahay idno uu marayo shuruucda iyo wixii qawaaniin uga degsan haddii ilahay idno sidii kuwii hore ay u mareen sidoo kale waxaan rabaa inaan ummadda reer puntland aan u sheego deegaanka muhiimadda koowaad oo priority-ga koowaad marka la iska siiyo ayaa deegaankeena noqon karaa mid horumaray oo horumar gaaray markaasna waxaa weeye noqon kartaa inaan ka qayb qaadano isbeddelka cimilada iyo saameyntiisii iyo siduu isu bedelay caalamku iyo isbeddelku sida isu bedelay cimiladu isu bedeshay in lala jaan qaado oo lala qabsado taasaan kusoo koobaya haddii ilaahayno waa mahadsantihiin axmed yuusuf maxamed wasiirka wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada puntland aad baad u mahadsan tahay waanu kusoo dhaweynaynaa insha allah wada shaqayn wanaagsan